دكتور أمال عثمان علي oo ka shaqeysa field hospital oo degmada Libanzon. Okay, bal amal markaba baritaan waraysigeena iyo su'aalaha aan degdegin. Balka hore degmada maxaad ku dooratay? Hortii koowaad walaalkay ayaa ku dhakhtar ahaa asaan arki jiray asigoo waxbarashada markuu ku jiro interestiga ka qaada marka iyo hooyo idhayso mar walba inaa dhakhtar noqotaa rabaa gabadheeda inay dhakhtar noqotaa rabaa idoo dhahayso taasaan ku doortay markaas waan jeclaaday takhaasuska dhakhtarnimada. Dhakhtarnimada maxay faa'iido leedahay? faa'iidooyin badan ay leedahay hatta bulshadeena maadaama dhakhtariin badan oo Soomaali jireen hadda ugu soo badan oo dhakhtar badan oo gabdho Soomaali wax barteen ugu soo fara badan yihiin laakiin maadaama nimanku u badan yihiin ma arkino naaga wax shooday leeyihiin inay ku dhawaadaan marabaan dhakhtarooyinka oo nimanka ah saartiis way fiican tahay inay naag hablooyin badan oo gabdho dhakhtariin ah Soomaaliyeed. ما قلتي بل أنت بدن دكتور ماذا وادي الشيء حوالي كشغلان حوالي كدكتور ماذا شغلان الدنيا مش كلمتي أتجتي مع طبيب عقبة إذا هو هرل حاين دتك بدن إده جرين قبرة تحي دكتور كما بيحكي كرتا it will be difficult وحبدن اللي ذا لكن ودمبستي يعني إلا ودمبست وإنا كبحي I prospered إدنا وحات ودمبست وكبحي حتى الله بس أنا وأقل إنجبية سنة كي سد هذا الشقين هيا. بالرغوين كلام حد الشيء ده بالروايات hadda maadaama ay waqtigii hore kuma jirto soo maahan oo naagaha irda lagu xiri jiray waa waqti naagaha wax badan ay qabsan karaan naagaha brain Soomaaliyeed waa strong people yeah sadartiis waa qaban karna haday dhahaan way qaban karaan taasaan aaminsanahay hadda iyaga inay wax bartaan oo waan gaari karnaa meeshaas haday isdhahayaan 100% wax la suubin karo corona covid waxa waaye wuxuu ka tirsan yahay SARS-CoV virus family la dhahaya wuxuu suubiyaa waa virus oo wuxuu ku droplets ama wax la dhibcaha oo ku transmit garooba saas dartiisa waxa muhiim ka ah waa respiratory system xanuuna ku dhaca saas dartiis calaamadaha koowaad waxa waaye ama qufac ama naqaska ku dhagaayo neefta cariiri ku noqonayso fever ama qandha zaid ah oo lahaana patientka ama afka dhadhanka iyo waxa ka tagaaya sanka dareenkiisa ka tagaaya madax xanuun zaid oo lahaana patientka saas dartiis waxa hadda ina transmission maadaama aan ku dhahay waa droplet soo maaha ama dhibcaha waaye ma saas dartiis waxaan rabnaa markasta inaa gacmaha la dhaqaa si fiican in loo dhaqaa ama inaa maaska gashanna maadaama waqti badan oo directly sanka iyo afka maadaama naga gaaraya maaska markaa gashanayna waa protective waaye inuu naga gaayo ama boqol jeer gacmaheen ku taataabanayna wajigeena taasna inaa ma sanitizer ama alcohol isticmaalna ama gacmaha ka ogaal fiican maadaama hadda anaka waxaan rabnaa inaa awareness ka create gareynaa beel walba taga waa loo sheegaa dadka laakiin se wili wax ka dhigi karna 100% Soomaalida way protective way ma dhigi karna 100% laakiin se taxadir way leeyihiin laakiin majority of the people waxa waaye inay dhahayaan waa wax ilaahay keena anaga ilaahay hoos galeena saatatiis wax lagu dhacay ma hadii ilaahay noo qadiro waa noo qadiray waa beem ah taas waa sax laakiin sa maadaama jirto protective means maadaama jiro kaas ina
كتحدثنا كل كورونا سده لها ماذا بولشدين هاد سومالي دد بدن isku noolyihiin hal family leh ma ahan distant family ku jiraan hal guri dad badan oo far badan ku jiraan sooma saadartiis transmission ka oo badana hadda kaas qofka banaanka u sii baxa sooma kaasna family ka oo sii faafina hadda family ka dhaxdiisa maadaam web adag tahay in kasta adag tahay laakiin protective means ka ina ka taxadirna way xanuunada waxa immunocompromise ka dhigaya way for example diabetic ama sokorta waxa dhaheen ama hypertension ka dhiikarka ama wadna xanuun dad kale am kaliya dadka maadaama immunity gooda hoos u dhacaya susceptible way inay xanuunadan ay qabto waa susceptible maxaa immunity ka celin lahaa oo ka difaaci lahaa maadaama oo yar yahay inay ika susceptible u ah waa vaccine ahaan way daawooyinka waa daawo oo way daaweynay ma ahan laakiin way ka celin way waa protective ahaan way maadaama oo vaccine yahay intoo qabanin ka hor hadda dadka dhan la wada siinaa waayo marka hadda qof leh cudurka hadda ku yimaado kuma saameynaysa sida ama mar hore polio iyo xanuun badan ay jireen hadda ilmaha vaccine laga siiyo waa protective way saas amal waxa bilaab doonta waqti of covid ka coronaha vaccine kiisa oo dad walba qasab mastas wax adag ma ahan koogiisa laakiin maadaama ko fikrad ku galaysa wax kasta plan ajira soo maaha gabar ay sax waqti badan oo shaqo way jirtaa hadda subaxii ama 8 la gala waxa laga soo baxaa 12 duty hour jira caawo dhan ina shaqaysidaa dhici karta hadda family yeeshatid waxaas oo dhan ada iskala toosihaysa maxaa waa prioritize grade hadda ila maanta shaqaysid maalinta hadda shaqaysid caawo family aad u joogi karta laakiin it's based on discussion of family la gali karta laakiin gabdhaha hadda iyaga kartiga leeyihiin waan ka bixi karnaa hadda leeyihiin wax laga bixi karo waa 100% صح hadda qaaxad atanada ama TV-ga waxa calaamadaha lagu yaqaan ko waxa waaye waa 15 maalmood qof oo lahaan qof aqaleel ma ahan sida oo covid-ka qof waa qof qalalan fever ana leeyahay laakiin TB-ga badan fever ma lahaanayso laakiin waxay lahaanayaan dhidid cawdi markay seexdaan dadku dhididayaan waxay noqonayaan weight-kooda oo ka yaraana appetite-kooda oo ka yaraana appetite loss lahaanayaan laakiin 15 days u socona like hadda 15 days ama 2 isbuuc hadda qofkii qufacaya waa diagnostic waaye inaad dhahda qofkan TB oo leeyahay laakiin 100% dhig kartid in la baaro gene expert ama FB investigation la dhahaan jiraan kuwaas inta qaadid oo like diagnostic maadaama yihiin 100% kuwana ku sheegi karaan laakiin covid-ka wax qaax ma lahanayo hadda qanda iyo testiga la'aan ama waxa isku aragtay qofac qallalan likely nas way jirtaa ina covid-ka noqdo laakiin baaritaan ma jiraan soo maaha isbitaalka tagay hadda calaamadaha isku aragta number la waca jiraan numberadaas soo wacay ama isbitaalada tagay iska soo baaray hadda personally saxa tahay gabdhaha Soomaaliyeed xishood ha ahaado wax kale ha ahaado ma jecel inay tagaan isbitaalada hadda markay gabadh u qaada test koowaad jira kaas la test gareena hadana ultrasound waxa ANC follow up wax la dhahaa jirta follow up kaas hadday ku socoto tooska waqtigeeda waa ogaana waqtiga ay dhalaysa ama waqtiga calaamadaha ku soo socdaan markaas hadday aragto waa inay toos isbitaalka u tagtaa maadaama guriga hadday ku dhasho risk badan jira infection waa ko maadaama ay dhalayso cunuga waa environment cusub oo aqoonin waxaas oo qaadanayo inhale gareenayo ama bacteria badan ku jira microbe badan ku jiraan ayarka soo maaha marka soo baxo infection ay qaadi karaa hooyada naftirkeeda waa dhiiga ka socda soo maaha waqtigaas infection badan inay qaado waa chancekiisu badan yahay in infection badan qaado saas dartiis waxaan leeyahay in dhiig baxaan waa dhici karta hadda PPH ka la dhahayo badana hooyooyinku inay ku dhintaan dhici karto maxaa dhacay dhiig badan ka baxaya soo maaha in la helnaa dhici karto transfusion ma la helayo ama in makaanka laga saaraa dhici karto hysterectomy waxa la dhahaa jira inta waxaas gaari lahayn koow inaa ka taxatirnaa soo maaha xishood wax la dhahaa nafteena wax intifaacayo
it's not helpful soo maaha hadda isbitaal tagta kalkaaliyaal iyo midwife-yaal badan aa jiraan oo gabdhaheena Soomaaliyeed ah soo maaha hadday rabin in niman ay ka xishoonayaan ama inuu nin dhakhtar ahna arka marabo dhaqaatiir badan aa jiraan oo gabdha Soomaaliyeed ah ama midwife-yaal badan aa jiraan ama nurse-yaal badan aa jiraan waa inay la hadlaan soo maaha laakiin gurigeena inaa ku dhaleena laakiin inay ku dhimato hooyadaas hal life aala waayay laga wadaa soo maaha lifekeeda leh life cunug ajro family-ga xataa oo saabsan waxa dhihi lahaa hadday uurka isku arkaan koogiisaba ANC follow up kaas inay la xiriiraan isbitaalka vaccine-yaal badan aa jiraan iron alsina supplement ilmaha dhibaato u keena iron supplement-kaas la'aan ama TT vaccine-yaasha badan oo la siinaayo wax oo ilmahaas intifaaci doona waaye waxaas oo dhan ma helayaan hadda hadday gurigooda iska joogaan soo maaha saadatiis ha yimaadaan follow up-kaeed ha gaarto isbitaalka waqtiga ay dhalays waa loo sheegaa si tartiib private room-yaal way jiraan public room-yaal way jiraan laakiin meelaha waa haween keliya maadaama ay haween dhaliinka yihiin haween keliyaha qolalkaas ku jiraan wax laga xishoodo ilama aqoon hadda meeshaa joogo wax fiican aan kala kulmay maadaama ahay gabadhii koowaad Soomaaliyeed oo dhakhtarad meesha tagta aan ahay si fiican leedi soo dhaweeyay markay ii imaado xitaa dhakhtarad gabadha rabnaa la dhahaa waa la imaanaa waa la consultation xitaa waa la suubiyaa dadka si fiican u isticmaalaan isbitaalkeena staffka xitaa waa si fiican u siiyaan service-ka soo gabdhaha Soomaaliyeed maadaama dumarkii ay ka dooranayaan adiga shacabkina fariin marti weey sax marwalba gabadh lama helayo may dhaqankaas marwalba dumar deegaanada tagtid gabadheena soo dadweyne badan sax shacabkina inay wax ku baxaan doctorada ragga aan loo baahan yahay inay markay haweenku yimaadaan caafimaad u shaqeyntaan habkii loo baahnaa inay la dhaqmaan sax gabdhaha maadaama ay more emotionally susceptible ay yihiin waxaa loo dhawayaa inay si tartiib ah loola hadlaa oo loo diirigeliya u fiican laakiin dhakhtariinteena xataa wiil iyo gabar kale ma jiraan kulli shaqadooda si fiican ay wada qabsadaan waa laga yaqaanaa fiiltu dhan waa dad laga wada yaqaanaa hadda gabdhaheena Soomaaliyeed waxaan oran lahaa xishood wiil iyo gabar dhakhtar waa qof dadka wax soo barteen wiil iyo gabar kale ma arkaan waxay u jeedaan qofkan bukaankaas caawinayna wax u qaban karnaa bas u jeedaan ma ahani wiil ha ahaata gabar ha ahaata umid kala jeedaan waqtigaas saas dartiis waxaan dhihi lahaa dhakhtarku wax ku soo horgaarabo si fiican taxadirka waxaan sheegi lahaa waa sidii hadaytaan ku dhahay transmissionkiisa in la gaabiya hadda distancingka waa koow soo maaha iyo maskaga haddaa gashtaan waa wax fudud wax weyn ma ahan saabuun iyo biyo guriga way ku taallaa inaad si fiican uga dhaqataa bas wax ka weyn kaama weydiiyahay laakiin ilahan ka hoosgalaynaa intii dhahna laakiin maskaga iska siibna sideeni hor wadna waa laga fiican horta ahaan anaka markay patient ilaa hadda ima soo gaarin mid suspect gayna woo jiray laakiin suspect markuu imaado kulligeenba staffka meesha joogay oo duty-ga ahaa taxadirkooda fiican ay qabeen koogaba marka la keenayo waa noo soo inform gareynaa sooma taxadirkooda fiican ay qabeen markaas waxaa jiro referral waxaa jiro catchment aa jiro maadaama anaka isbitaal weyn baaritaankaas aan lahayn waxaan u diraynaa catchment-ga oo referral hay koo waxaad dareemee qandhaa ka wada dareemaa iyo qufac qalalan adi ma filanaysid maadaama qufac hergabka ama tiibiga qaaxad u barat sama laakiin qufac waa qufac qalalan qandho zaa'id ah oo adi dhan qarqaraysa iyo chills and rigor waxa la yiraahdaa kaas chills and rigor lahaani madax xanuun oo headache oo severe lahaan laakiin calaamada si fiican lagu ogaana waxa way taste budka ama dhadhanka ka tagaaya waxa mid dhadhamin karta sanka urka oo ka tirma iyo hadduu severe stage gaarana waxaad arkay inuu naqaska ku dhagaayo in neefsan karin shortness of breath and Disney waxa la jira shortness of breath lahaana and Disney ka oo noqona markaas waa inuu qasbin inuu isbitaalka la xiriiro waxaan dhihi lahaa
waxaan dhihi lahaa waxaa laga taxadira maadaama oo bulshadeena isku wada jirna insha allah waxaan waqti aan ka baxayna waaye laakiin ilaa intaas ah waa in laga taxadira